السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkeeni lixaad ee barashada cilmiga ASP.NET Core inagoo sameynayna project la yiraahdo Godey Madrasah. Waxaan soo sameynay macallimiintii, haddana waxaan sameynaynaa subjects. Marka waa same concept inaan sameyno control la yiraahdo subject and then inaan database ku xidhno all subjects page la yiraahdo, create subjects page la yiraahdo, edit subject page la yiraahdo iyo delete button. Inta inaan sameyno waa. So let's do one by one. So right click your project and then add the controller color. Right click the controller folder, add and then say controller. And then of course you do the empty control always and you click add. Waxaad subjects oo s u dambayso sida halkaas ku aragtaanba subjects controller oo iska xidhaysa marka add baad leedahay adigu uu kuu soo galayaa halka index baa kuu soo fadhiisanaysa iska tirtir indexkaas. Step 1 mar alla markii aad control sameynayso step 1 add a constructor and do database db context injection. So same thing, waxaad qoraysaa korka kore private read only school database db underscore. haddii uu reer kaa saarmo dul tag, make sure spelling inaad iska saxdid and then calaamada using korka kore models Godey Madrasah.models make sure inaad haysatid and then maxaan ku rahdaayay CTOR ama aad u qor whatever you prefer, school database db and then underscore db oo taa kore ah waxay la mid tahay db oo tanna waa midda ka imaanayso starter fileka ee kusoo xidhmaysa databaseka. So your database will be stored and put in there for you already. And then intaa markaa samaysid waana sameyna pagekii ahaa all subjects waana variable sameyno cusub si aan ugu kaydino macallimiin subjectyada ka imaan databaseka local halkan saan temporary ugu kaydino. waxaan leenahay subjectigan cusub show all subject oo variable ah ama waxaan leenahay wuxuu la mid yahay databaseka add table clear subjects include subject kasta ardada dhiganaysa list soo geli wax oo dhanba halka inoo soo dhig then wixii halka inoo yaala oo hadda dul tagtid list of subjects ya order viewga wali ma jiro, we right click and we say add view and then we do the normal way and step waxaan viewga tag subjects folder for all subjects korka kore modelka list of subject geli diff baad sameynaysaa la yiraahdo container border baad siinaysaa inside the diff h3 ku samee hr buttonkii isaga ahaa create subject controller subjects weeye waa button btn small btm success ka dhig halkaas and then add subject baad leedahay and then table kan caadiga ahaa table and then tr-radan caadiga ahaa you can copy really wixii kugu jira teacherka cashirkeenii hore and then just bedel kuwan id subject name description cost duration number of student ka u dambeeyo oo ebera and for each subject in the modelkuna waa listiga waa kaa kore u koreeya and then the rest of the stuff waan kasoo hadala calaamadan null waxaa la dhahaa null collisions ay check garaysaa in uu null yahay in kale haddii kalena eberc haddii kalena count gare badhamadeeni edit subject iyo delete subject labadan action wali meena sameynin waan iskaga sii darsanay laakiin and then id-gii waan diraynaa through mid kasta id u baahan yahay haddii macal edit subject la edit garanayo id-ga subject waa inaad u dirtid haddii delete garanayo waa inaad id-ga subject u dirtid on click confirm are you sure you want to delete this subject waa soo marteen sharaxaad saas uma baahno waa same thing all you need to do is copy paste from the other one haddii kale halkan ka fiirso oo post garee fadlan. Okay, subject waa inaga dhamaaday and let's go ahead and see what we have. Save gareeyo, let me click subjects. Alright, subject ana macallin horaan ku daray so idinka ma hadatiin macallin math baan ku daray so add subject button ku dhufo wali meena sameynay this one. So this is the one hadda aan sameynay. So let's do the add. Now sida caadadeed we have to create a get create method waa empty form bay soo celinaysaa. So let me go ahead and now refresh it and click add subject. It should show me that form wali hadda idinku ma haysatiin laakiin
formkaas ayaan hadda I'm gonna walk you through how to do insha Allah. cashirkan waan yar boobsiinayaa maadaama aad soo aragteen sidan uu formka u ekaanayaa, so let's do one by one insha Allah. And before we do that, every time you create a form, now you have to create the post of that form too. So postigii subject ka imaanay, validation key, add in the same thing way. And all I need to do is create subject, right click, add view there, save it, and then create subject tag, korkaa kara model ku darso, and waxaa sameynaysaa div containerkiisu yahay h3 hr form create subject post weeye, same thing, asp validation summary diff row. Screenka waan kala qaybinaynaa, waxaan u qaybinaynaa 6 iyo 4 waa intii ahayd, no difference whatsoever. 6da hore waxaan gelinaynaa 2 waxaan gelinaynaa subject name iyo subject description. Descriptionku waa text area, kana idinku cusub. Inta hore input bay ahaan jireen like text area, and then the only thing I want to show is calls and rows. Text area maxay tahay? waa button text, kuwan kale waa yaryariin saa u jeedaan, like kan waa ballaaran yahay. So rows kuna waxaa 5 ka dhig, columns kana 5 ka dhig. waan ku 10 I don't know wax noocaas ah. Let me see, 5 iyo 5, yes, isla yihiin. So if you want to increase xaggan hadda u dheerinaysid, kan ayaa waxaad ka dhigaysaa 10 ama 20, whatever you prefer. Marka form yar qurux badan oo isla eg size ahaan laakiin mid uu weyn yahay. Description ka text baa laga yaabaa wax badan inaad ku qoraysid. And then callkaasi waa 6da hore waxaa ku jirta 2daas, 6da dhexena waxaa ku jirta, I'm gonna leave it open so aad u fiirsatid. 6da kalena waxaa ku jirta costiga, durationka, max to student ayaa ku jira. You can pause it and then do it. adaan ku yar kaadinaya insha Allah taala. So samee kana samee, and then buttonkiisa ahaana waa kan 4TC buu leeyahay. So okaas, alright, kan index buu leeyahay. marka waxaad ka dhigtaa all subjects ka dhig, halkan ii bedel fadlan. Okay, I think we're done on this one, so let's go ahead and refresh it. And waxaan ku qorayaa Quran, Quran muddo kooban wehed insha Allah. Costigu waa $100 Quraanka. Durationku waa 4 bilood months ka dheh. 30 arday oo loogu talagalay. Create. There you go. Quran, حفظ القرآن 100 نعطيها ديار أدولي أرض ما لقيته. So let's add one more. هجادة ألف ليدة ويلل يوغب دبا. Let's say $40 for 3 months. Okay, it's working. So now we have to do delete. You wanna sameyno edit ku saan sheegnay waa 90% waa create. So meeshan hoose always make sure inaad 2 mustache hoos ku haystid. 2 mustache waxay kaliya mid korna waa namespace-ka, waa magaca project-geena, ka ku xigana waa class-ki weeye oo ha controller-ki right here, this controller. So 2da xabo weliga dhinaca kale ka maran. Hadda hal ku qortid khalad baa ka dhacaya ama error. So here ayaanu waxaan sameynaa edit actionkeedii get-ka ahaa. ID bay u baahan tahay of course, sababtoo buttonka edit wuxuu u baahan yahay ID. hoose fiiri fadlan. 2 isbedelaysaa 1 3 kana delete sidoo kale ID bay u baahnaan doontaa. arrintan waxay noo suurtagelisay all subjects markaan sameynayna meeshan hoose waa kuwan. waxaan edit subject waxay u baahan tahay ID, u dir subject ID. delete action waxay u baahan tahay ID, u dir subject ID. alright, and let's go back to the subject controller. ID gani samee, and then postigiisana samee. haddaan sharaxo intan waan soo sharaxnay. waa ID bay u baahan tahay, database-ka tag, subject tag, find soo hel subject-ga ID-giisu 1 yahay tusaale ahaan.
halkan ay soo fadhiisanaysaa ID-ga one math iyo description-keedii iyo cost-geedii iyo wixeedii hadduusan null ahayn hadduu null yahay oo macnaha ever yahay oo ID-gu uu khaldan yahay ama database-ka maadada laga tirtiray subject-na found error la yidhaahdo tus customer-ka ama shakhsiga haddii kalena soo celi oo formkii gee oo buuxi then waxaa weeye postigana marka lasoo buuxiyey wax laga soo bedelay check validationkii oo dhan inuu lala kulmay ama la midgareeyey ka bacdi database-ka add subject update garee waxa cusub laga dhigay hadduu yahay subject ID haddii la bedelay description-kii haddii la bedelay cost-giiba bedel waayo oo database-ka update garee then ka bacdina dib ugu noqo page-kii all subjects-ka ahaa haddii kale oo khalad jiro oo wax ka maqan yahay edit page-kii dib ugu celi very simple let's check it out so waxaan leenahay math-ka ardaydiisu way badan yihiin so waxaan jeedaa waa 30 so let's change edit waxaan ka dhigaynaa hold on I think waan khaldamay maanan samaynba page-kii so edit-kan right click and then edit and then add view so now edit page-ki tag edit-kii waa kan so kor model ku qoro model marka ku qoratid div class isla key create-ka soo kobiyeysan kartaa waa bedeli kartaa the only thing is mid ID-gan ha iloobin hidden for subject ID ha iloobin inta kale action-kan edit subject ka dhig button-ka u hooseeya waxaad ka dhigtaa update that's pretty much it so saddex meelba title-kan heading for action result afwan iyo kan waa 4 meelood intaaba bedelaysaa simple as that meeshan u dambaysan of course waa bedelaysaa iyadana meeshan ay ku qoran tahay all subjects ka dhig okay I think we are all done let me refresh it math-kii waa inoo diyaar ardaydiisii waxaan ka dhigaynaa 10 ka dhig bas update sida math ardaydiisii 10 buu ahaa aan ka dhignay cost-iga quraanka las aan badino dadka ardayda aan ka dhigno let's say 445 arday muddada lacagtiisuna aan badino haddii la doono ama 45 sida okay very good so hadda waxa edit waan sameyn delete baan oo dhiman delete iyadu waa simple waxa weeye waa action aan lahayn wax view at all so delete ID u baahan tahay soo hel maadadii haddaysan maadadu ay jirin oo maada jira ay tahay maada aan jirin ay tahay then no subject soo saar haddii ay jirtana remove u fiirso wixii delete remove baa la dhahayaa wixii edit update baa leeyahay wixii add waxaa leeyahay add so we gotta know those things inshallah and that's it so let's save it or refresh it and let's go ahead and say math ashwal madrasa math loogama baahno so delete oops foreign key yes this is good okay so delete haddii arday uu dhiganayo maadada oo arday uu dhiganayo ma tirtiri kartid ardaygaas waa in maadada laga saaraa hadda fiiri hal arday baa dhiganayo hadda maadada aad tirtirtid ardayga wax ku imaanayso so you have to go to student ardayga waa Faadumo waatan Muna weeye math bay dhigataa sida class-ka waa math so edit baad leedahay math-kan ama waad ka tuuraysaa waxaad leedahay uma baahnid ama quraan ku bedel math ka tuurso update baan leeyahay so now quraan bay dhigataa so subject dan tago now see hadda math-kii waa 0 wax arday dhigta ma jiro laakiin Muna hadda waxay dhigtaa quraankaas hadda dhigtaa so now I want to tiri karaa now so remove sida so hadduu arday uusan dhiganin maadadaas waa tirtiri kartaa hadduu dhiganayo arday ma tirtiri karto waa ardaydii aad ka wareejis oo meel kale u wareejis ama maada kale aad geysi gaado kale wax namida alright so subject-ina saas inoogu dhamaaday insha Allah taala wax yar dan dib ugu noqdo control baan sameeyay subjects ka bacdi CTOR ama constructor injection ma ku sameynay
kabacdi page la all subjects ayaan sameynay pageka all subjectska waa kan macluumaadkiisii oo dhammaystiran insha allahu kabacdi waxaan sameynay labadii method midna get midna post for create subject and delete subject and then labadii kalaan sameynay ahaa edit subject and getkeedii posteedii and then lastly delete ayaan sameynay and that's it insha allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.